caafimaadka waxbarashada waxaynu leenahay wax cilad ah markaynu fiirino accesska ama haweenku ay u leeyihiin iyo inay la siman yihiin jinsiga kale ha noqoto gabdhuhu inay la siman yihiin wiilasha ragga marka la fiiriyo xuquuqda ama adeegyada bulshada oo la helo waxaan u malaynayaa inaynu horumar badan ka sameynay aynan jirin wax caqabada oo maanta heer qoys iyo heer maxay ahayd dawladeedba ka jira inay gabdhaha iyo wiilasha iyo haweenka iyo dumarku ay u sinaadaan adeegyada aasaasiga oo caafimaadka iyo waxbarashada taasi waa guul ugu faano marka aynu fiirino 25 sano oo ka soo wareegtay maalintii maxay ahayd shirweynahaas iyo ballanqaadkii uu caalamku ka sameeyay arintaas marka aynu fiirino dhaqankeena waxaan u malaynayaa meel fiican baynu maraynaa waxa la dhihi jiray gabdhaha xuquuqdooda marka laga hadlayo ama dumarka ay raggu ka hadlayaan waxa la dhihi jiray gabdhuhu wayna dhaleen wayna la dhasheen waynoo dhaxaan taasi waxaad moodaa xoogaa waa wax ay ku jirto hoos u fiirin gabdhuhu waynoo dhaxaan marka la leeyahay ama wayna la dhasheen maanta waxaynu maraynaa qoyska reer Puntland ama Soomaaliyeed gabdhaha iyo wiilashu inay isku mid yihiin aynu og yihiin maanta doorka haweenku ay ku leeyihiin bulshadooda gabadha yar la aaminsan yahay awoodeeda loo siman yahay inay doorka u diraan qoysasku ay u diraan waxbarashada gabar iyo wiil u simaan caafimaadka gabar xanuunsan iyo wiil xanuunsan ma kala laha waxaynu sameynay tadawur fiican iyo horumar fiican oo aynu ka gudubnay heer dhaqameedkii aynu geedka fariisan jirno aynu dhihi jirnay haweenku halkaas ay marayaan waxaynaan maxay ahayd muhiimad leh inaynaan inkirinin inaynu haweenku markaynu nahay dhinacyada siyaasadda marka la fiiriyo iyo ka qaybgelinta go'aanada inaynu weli meel hoose marayno taasina alxamdulillah waxaynu uga gudbi karnaa gabdhahooda iska soo dhisaan dhinacyada waxbarashada oo maanta horumar fiican aan ka sameynay waxaynu gaaraynaa heer aynu ula sibannahay siyaasadda iyo ka qaybgelinteena ragga aynu ula sinaan marka aynu fiirino tacadiyada dhanka ka jinsiga dumarku maadaama sida ilaahay uu sameeyay ay u nugul yihiin inay maxay ahayd ku dhacaan tacadiyadu ma inkirayno inaynu wadankeena Soomaaliyeed ay ka jiraan wali tacadiyadu waxaana keenaysa marka aynu fiirino badnaanta tacadiyada dadkii oo soo batay sanadkii waxaynu ka hadalnay 75 population-ka Soomaaliya inay ahayd 4000 maantana aynu 3 jibaaranay oo 12 milyan marayno marka waad dareemi kartaa tacadiyada iyo dhibaatooyinku inuu horumarku badanayo dhibaataduna ay iyaduna garab socoto ay dhacayso tacadiyadu way dhacayaan laakiin inagu marka aynu fiirino horumarinta haweenka Puntland waxay ka leedahay siyaasado badan oo maxay ahayd support gareynaya ama taageeraya haweenku inay ka maxay ahayd aysan ku dhicin tacadiyadu waxaynu leenahay sharciyo badan oo ay ka mid yihiin sharciga horumarinta haweenka oo maxay ahayd waxaan leeyahay siyaasadda horumarinta haweenka oo draafti ah hadal rabo Puntland intuu sanadku dhammaan hadii Allah in la soo saaro waxaynu leenahay xeerka ama siyaasadda gudniinka waxaynu leenahay anti medicalization policy oo caafimaadku diidaya markii hore gabadha waxa lagu gudi jiray goobaha caafimaadka lagu sameyn jiray gudniinka maanta waxaynu maraynaa inaynu mamnuucna hadaynu nahay Puntland oo san ka dhicin gudniinku goobaha caafimaadka waxaynu leenahay shuruuc iyaduna aad u jeedeen hadda mudooyinkii dambe in aad loogu dhaqmeeyay oo ahaa maxay ahayd sharciga ka soo horjeeda maxay ahayd kufsiga oo hadda dhaqan galay si fiican u dhaqan galay 2017 bay ahayd markii la saxiixay laakiin hadda dhaqan gelintiisii si fiican bay inuu ku socotaa alxamdulillah guulo baynu ka gaarnay halkaasna guud ahaan waxaan u dirayaa bulshooyinka reer Puntland hambalyo guulaha la taaban karo oo dhinac walba ka gaartay salaan runtii waxaan rabaa inaan ka bilaabo marka hore mahadcelin aanu mahadcelinayo cid kasta oo ka soo qayb gashay maanta xafladan oo waqtigooda qaaliga ah si ay horumarka uga qayb qaataan wadanka soo hortay waxaan si gaar ah ugu mahadcelinayaa wasaaradda qorsheynta tiimkii ka shaqeynayay iyo khaasatan gabdhihii sida hagar la'aanta xafladan bishii la soo dhaafay oo dhan isugu dubariday jihaan iyo qofta la yiraahdo baxsan UNFPA guud ahaan waxaan u mahadcelinayaa madaxweyne ku-xigeenka oo waqtigiisii aan garan karno waxa hawl u taala xafiiskiisa waqti ku filan na siiyay inuu nagala qayb qaato intaas kadib munaasabadan si fiican baa loo faahfaahiyay
25 sano u dabaaldegidda ama xuska 25 jirka maalinta loo asteeyey arrimaha dadweynaha iyo horumarka laba kala maarmo ma aha waxaan qirayaa marka aan ogahay aniga ah wasiirka qorsheynta xogta aan hayo oo ama statistics-ka waddanka laga ururiyo ha noqoto oo dhinaca caafimaadka dhinaca waxbarashada dhinaca dhaqaalaha dhinaca kasta oo ay tahay sahamada waddanka laga ururiyey in horumar la taaban karo oo aad iyo aad ay u adag tahay waddan burburay oo hay'adihiisii dawliga ahaa ay burbureen inuu gaaro in ilaa hadda uu ka socdo Puntland oo tusaale u noqon kara muujinaysana in inta kale ee waddanka Soomaaliyada kale khaasatan koonfurta Soomaaliya maamulada ka jira in sidaas oo kale ay ku dayan karaan gaarina karaan lana gaarsiin karo waxa laakiin sidoo kale ayna jirta in caqabado waaweyn ay haystaan dhinaca waxbarashada waxaa la fiiriyaa wax la yiraahdo gross enrollment waxaan maraynaa weli 50 iyo xoogaa dhinaca waxa loo yaqaano dhimashada la xiriirta dhalmada maternal mortality rate waxa la yiraahdo waxaa la sheegay 614 hadda inay marayso Soomaaliya boqolkii kun oo hooyo oo dhalaysaba 614 baa dhimata xogta la hayo ama u dhimato uurka ama waxay u dhimataa waxa la yiraahdo dhalmada intay ku jirto waa arrin wax laga qaban karo qadarta Ilaahay iyo qofka uu la kulminayo waa meesheeda laakiin sababaha ugu waaweyn arrimaha keena waxa weeye wax laga qaban karo waa caafimaadka in la hormariyo waa in la hormariyo caadooyinka iyo dhaqanka la xiriira wada noolaanshaha reerka hadday noqoto guurka hadday noqoto arrinta hadda laga hadlayo family planning wax la yiraahdo iyo qofka inuu ilmaha kala korintooda xilliga in waqti loo sameeyo ama nuujin fiican kii dhashay la siiyo quality leh ama ay noqoto laftooda inay hooyada loo naxariisto oo maaragtay arrimaha marka wax ka qabashadooda caqabado waaweyn baa ka jira horumar la taaban karana waa laga sameeyey waxaan marka rabaa inaan idiin sheego horumar markii laga hadlayo hadda anaga waxaan develop garaynaynaa sidii halkan laga sheegay qorshihii 5 sano oo Puntland oo soo socota waxaan rabnaa inuu ka duwanaado qorshayaashii hore absolutely inuu kaga duwanaado inuu noqdo mid waaqici ah oo run ah oo waddanka xaqiiqada taala iyo xogta dhabta ah ee deegaanadeena iyo dadkeenu wajahayaan inuu ku salaysan yahay waxaan iska daba diraynaa ilaa haddana socda sahamo iyo sarfeeyo isdaba joog ah oo tuulooyinka iyo deegaanada iyo dadka loogu tagayo oo lagu ogaanayo wax la yiraahdo baahiyaha ay qabaan iyo xaaladaha ay ku sugan yihiin dadka tiradooda halkan ku nool maxay yihiin maxay kala yihiin markay noqoto dhinaca jinsiga baahiyaha soo noqonaya oo koowaad maxay yihiin maxay u dulqaadan karaan maxaysan dulqaadan karin arrimaha marka laga hadlayo waxaan idiin sheegayaa haweenka iyo dhalinyarada haddii aan arrimaha ayaga u gaarka ah siday tahay loo tixgelinin waxay la micno tahay inaan maaragtay nafteedana beenu sheegnay waxaan qabanaynana ay noqdaan waxba ka jirin sababtu waxa weeye bulshada waxaan la yiri hadda Soomaalida boqolkiiba 55 waa dumar baa la yiri ninkii yiraahdo horumar baan ka shaqeynayaa marka boqolkiiba 55 waxay rabaan ma dhageysanayo xuquuqdoodana ma arkayo baahiyahoodana si gaar ah uma fiirinayo de horumarka ma shaqeynay ninkaas wax kale ka shaqeynaya Soomaa arrinta marka anaga way naga go'an tahay ayadoon maalintan kaliya lagu beegayn si toos ah bay naga go'an tahay arrimaha marka laga hadlayo la yiraahdo xuquuqda aadanaha marka la yiraahdo qofka Soomaaliga maskaxdiisa waxa ku soo degdegaysa waxa la yiraahdo inay tahay wax ay hay'ad wadato ama qorshe gaar laga leeyahay laakiin adduunka xuquuqda aadanaha qof marka uu maqlo gadaal buu istaagay arrinku hadduu xuquuq aadana galo constitution dastuur uu wadan leeyahay waxa koowaad oo asaas looga dhigo waa wax la yiraahdo bill of rights xuquuqda uu dadkaas leeyahay aniga ka shakhsi ahaan ama nin aan ahaado ama wiil aan ahaado ama gabar aan ahaado xuquuqdayda sidee bay aan u heli karaa dawladda lafteeda la rabaa in xuquuqdaada aad ka heshid
inaysan ku tacadiin waxaa laga cid kale kugu tacadiin waa sababaha maxkamadaha iyo booliska iyo baarlamaanka iyo awoodaha isduljoogtayn ee loo sameynayo oo dhan waxa ugu wareegaysa waxa weeye qofka insaanka ah ee nool inuu xuquuqdiisa la badbaadiyo helana uu xaq u leeyahay arrinta la xiriirta in la joojiyo tacadiyada ka dhanka ah dumarka wax loo yaqaano gender based violence-ga GBV-ga iyo in la sameeyo go'aamada qoyska ay qayb lixaad leh ka qaataan hooyada iyo haweenku inay ka qaataan waa xuquuq aasaasi ah weeye xuquuq aasaasi ah mar hadday yihiinna waa inay horumarka iyo nidaamka waddanka iyo xeerarka soo baxaya oo dhan ay kuwaas saldhig u yihiin oo ku jiro dastuurka waddanka waxaan marka haddii ilaahay yidhaahdo anigu nin baan ahayoo hal reer baan leeyahayoo waxaan idiin sheegayaa gabar iyo waxaan dhalay 3 wiil been ma aha waxaan u jeclaa intooda oo ugu yar gabadha xaafadayda go'aamadeedana 90% waxaa qaata xaaskayga taa micnaheedu waxa weeye nin kasta oo dhalinyaro ah oo maanta jooga oo dee raggii hore odayaasha ahaa ma aqaan go'aamada xaafadda iyo dhaqaalaha iyo ilmaha waxbarashadooda iyo sida la yeelayo 70% dee globalization aad buu inoo saameeyey waxaan hubaa inay gabadhu qayb ka tahay xaal gabdhaha hawlaha halkan fadhiya oo yararka waa nasiib badan yihiin maanta haddii ilaahay arrinta marka inay kalsooni keento oo wax isbedeleen in lagu dhiirado aan laga soo qaadin meeshii ay maraysay 30 sano ka hor 40 sano 50 sano ka hor 50 sano ka hor waxay ahayd islaamtu waa guri joog soo maaha wixii loo yeeri yaqaan jirtay naar reerka talaysaana iskala weeyahay maantana waxay maraysaa in ambaashi ay kala dhigan tahay oo 50-50 tahay ama looga baqaba oo looga dambeeyo haddii xataa looga xishoonin gabadha xaaska in looga baqo arrimaha marka waa bogaadinaynaa waa soo dhawaynaynaa aad baan maaragtay hadduu ilaahay yidhaahdo wasaaradda qorsheynta national development puntland development planka 5 sano ee soo socda ay uga dhex muuqan doonaan arrimahaas aan sheegnay waxaana kala shaqayn doonaa cid kasta oo qusayso oo ku jirto wasaaradda haweenka wasaaradda caafimaadka ururada haweenka ururada bulshada degmooyinka dowladda kala duwan waxaan rabnaa dadka halka fadhiya adinkan role weyn baa ku leedihiin asbuucyada soo socda waxaan qaban doonaa magaalada Garowe ka bilaaban doona doodo live ah oo isdaba joog ah iyo shirar consultations oo dadweynahan u furayno sida ay wax u arkaan in horumarka waddanka looga shaqayn karo inay tahay hadduu ilaahay idmo waxaan aad iyo aad idinku mahadsantihiin halkaas ayaan hadalkay kusoo gabagabeynayaa